تاريخاً كيغان إلها قرية وذا هذا الهرتي قروصو وحانها مدرتان وقلي كفكي مساريلة تميد بريد معي تركيغا دالكي كوكو ميسان جيري تلياني بدو كوكوي بربر مكروستي sida aynu ku soo xusnay qaybihii hore ee barnaamijka shirka Boorama ee dibudhiska dawladnimada Soomaaliland waxa uu ahaa talaabooyinkii ugu dambeeyay ee salka loogu dhigay wax wada lahaanshaha ummadda waxa madaxweyne loogu doortay hogaamiyihii ka yimid bulshada rayidka ah ee Maxamed Ibraahim Cigaal iyadoo uu si niyad same ah u bogaadiyay hogaamiyihii u dambeeyay ee SNM Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur Professor Michael Wallace oo jaamacadda London ka tirsan kana mid ah khubarada u dhuundalola taariikhda Soomaaliland ayaa mucjiso iyo ilbaxnimo siyaasadeed ku tilmaamaya qaabka xilliga madaxweyne SNM ay xukunka ugu wareejiyay madaxweyne Rayida. The other thing that happened at that conference was that the waxyaabaha kale ee shirka Boorama ka dhacay waxa kamid ahaa in hogaamiyihii waqtiga SNM oo madaxweyne ka soo noqday oo haddana isla shirkaasi yimaado isagoo raba in uu mar labaad tartamo balse markii lagu guuleystay uu haddana si geesinimo leh ugu wareejiyay awoodii madaxweynihii rayidka ahaa ee shirkaasi lagu soo doortay waxay ahayd runtii wax cajiib ah bisayl ah iyo rabitaanka ummadeed oo ammaan mudan shirkaas Boorama ee dawladdaas lagu soo dhisay kadib waxa ay Soomaaliland cagta la heshay dhabbada dimuqraadiyadda iyo wada tashiga waxaana joogto noqday wada xaajoodka heshiiska iyo isu tanaasulka oo dhammaantood suurageliyay in Soomaaliland laga hirgeliyo buunta dimuqraadi ah oo lagu gaaro horumarka awoodda dalka oo si nabadgelyo ah la isugu wareejiyo iyo dhaqangelinta xeerarka bulshada lagu hago taas oo meel mar ka dhigtay in Soomaaliland sidan u ekaato nidaamka dimuqraadiga ah ayaa lagu tijaabiyay doorashadii madaxtooyada ee sanadkii 2003 oo ay wax ka badan nus milyuun cod bixiye ka qayb galeen waxaana loolan adag oo madaxtinimo dhexmaray madaxweynihii xilligaas Daahir Riyaale Kaahin iyo hogaamiyihii mucaaradka ugu taageerada badnaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo horena u noqday gudoomiyihii ugu muddada dheeraa ee ururkii SNM waxaana doorashadaas oo ahayd mid hal cod iyo hal qof ah kursiga ku helay madaxweynihii talada hayay xilligaas Daahir Riyaale Kaahin 80 cod oo kali ah waa marka ay dimuqraadiyadda curdinka ah ee Soomaaliland ka badbaadayso simbir raxashada xilli ay kala durugsan yihiin wadciga filashada bulshada iyo go'aanka hogaamiyaha mucaaradka ah ee Axmed Siilaanyo aqoon-yahan Cabdiqaadir Jirde ayaa ka mid ahaa odayaashii dhacdada siyaasadeed goobjooga u ahaa that time I was the deputy speaker of the house and the rest of the elders delegated me to go anigu xilliga waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenkii golaha odayaashii kale ee golaha ayaa ii xulay in aan anigu la kulmo Axmed Siilaanyo waxaan xasuustaa waxa aan kula kulmay meel magaalada ka baxsan markii aanu taladayadii u soo bandhignay isna waa una la hadlay waxaana ku qancinay in uu go'aanku noqdo in uu aqbalo natiijada xitaa haddii aanu aaminsaneyn in ay sax tahay even though he had no trust in the courts his supporters diehard supporters were advising him never to accept that saaxiibadiisii iyo la taliyaashiisii xisbiga ee uu ka mid ahaa saaxiibkay Muuse Biixi xilliga waa ay diidanayeen oo waxa ay lahaayeen in la aqbalin natiijada I think the international community and the world knows that beeshii caalamka iyo duniduna way ogaayeen doorkii uu ka ciyaaray waxaana uu si cad u yiri Siilaanyo hargeysa yeelamayso khad cagaaran oo dhinacna dawladdu gacanta ku hayso dhinaca kalena anagu gacanta ku hayno he accepted to save the country waa uu aqbalay si uu dalka u badbaadiyo waxaan xasuustaa intii ku xirneed oo dhami waa ay diidanayeen inuu aqbalo he had the guts to overrule them. I said no way, we are not going back to the civil war. isna waxa uu lahaa maya ma rabo in dagaalkii sokeeye ee sanadkii 1994 oo kale lagu noqdo 94 madaxweynaha hadda talada Soomaaliland haya mudane Muuse Biixi Cabdi oo xilliga xisbiga kulmiye u qaabilsanaa korjoogida tirinta codadka ayaa siyaasi Cabdiqaadir Jirde maraga arrintaasi u furaya أروح على حزب كل ملك وجوه التراث
سيلاي وحده وريالهن أنا مسكين بالله أنت مسكوت شبرها أنا رجع جديد مرة سيلاي كوري دجال لما رنا وحنكون دور شيء لقوا عري وعد هذا تنستحمى هاي نوح الله هنا لك شغل على ما بقبل كره وعدان ما runtii siraayana maalintaa soo karigi wuxuu istaagay mar walba cid har raacday war miska sii deynaa taagan hatta mar buu ayaa garay hadalka yiri war aniga kursiga lagu dagaalamay nabad aanu qaadan boqolka badalka waxa uu qaraan arday odayaasha halkaan soo dhigano ay xaq dhaqan ka mareen shan sano waxa ma ahay أنا أقبل دلكواجو Somaliland waxa ay xilligaas xajisatay salaanka dimuqraadiyadda iyada oo dhaqanka dulqaadka ah faray in laga jiro ruuxan iyo turunturo xilli lagu qasbanaa in la kala doorto is-afgarad iyo dagaal sokeeye oo dib loogu laabto Professor Michael Wallace ayaa mar kale sharaxaya xusuustiisa sidii waqtigaas Somaliland ugu fara adeegtay koritaanka xididka curdinka ah ee dimuqraadiyadda loogana baaqsaday in dalku qaado wada qaldan. Being that close, 80 votes, well, anyone can codadka sida isugu dhow waa la qiyaasi karaa 80 cod oo kaliya qof waliba uu garan karaa in qaladna uu ku jiri karo saxna ay ahaan karto oo wax lagu muran karo ay yihiin hase yeeshee Siinayo waxa uu kala doortay in muran kaasi dhaco iyo in uu ogolaado But he made a political decision which waxana uu qaatay go'aan siyaasi ah oo geesinimo leh go'aan siyaasadeed oo Somaliland tan u ah ayuu sameeyay okay yep it might be only 80 votes but for the sake of Somaliland waxana uu yiri waa si wanaagsan 80 kaasi cod sidaas ayaan ku aqbalay Somaliland darteed runtii waxa ahayd arrin aad u weyn that was a huge moment in ay Somaliland qaado jidka nabadda iyo xasiloonida isla markaana ay ka gudubto xaalad kasta oo murugta waxa suurageliyay ku dhaqanka nidaamka wada hadalka iyo in dawlad iyo shacab loo qabsoomo lana maqlo xeer beegtida madaxda dhaqanka ganacsatada iyo waxgaradka bulshada dhaqanka dimuqraadiga ah ee jabhadii SNM kula dagaalantay Siyaad Barre markii dambana ku xoreysay Somaliland ayaa isaga laftiisu door wax ku oolaha ka ciyaaray seeska adag ee ay Somaliland ku taagan tahay oo imikana Somaliland u suurtageliyay inay dib u dhisanto محمد علي بن agaasimaha madaxtooyada Somaliland iyo Maxamuud Cabdiraxmaan oo ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa raaga Omar uga waramaya duruufiyaadka ay kaga soo shaqeeyeen Somaliland bilowgii hanaqaadka dawladnimada iyo dib u dhiska Somaliland in the first 10 or 15 years it was tough way adkeyd 10 sano ama 15 sano ee ugu horeeyay maxaa yeelay dalku gabi ahaanba waa uu burbursanaa guriyo ma jirin jidada ma jirin dugsiyo ma jirin jaamacada ma jirin waxaanu nolosha ku qaadanay 20 sano ee ugu horeeyay dib u dhiska dalka dib u dhiska gaabayaasha dhaqaalaha iyada oo hoos laga soo bilaabay from the grassroots I remember back in 1991 waxaan dib u xusuustaa sanadkii 1999 oo aan Somaliland joogay xilliga oo aanay isgaarsiin jirin qofkuna uu ku khasbanaa inuu u safro Ethiopia Djibouti marka uu rabo in uu wicitaan dibadda ah sameeyo 20 sano ee hore Somaliland ma ay heli jirin wax deeqo ah iyadoo oo geesta kalena dalku jeedaalinayay aqoonsi caalami ah waxaana mustaqbal aad uga duwan kuwii hore oo u bidhaamay jiilkii sanadaha dhashay ama la koray Liibaan Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda Somaliland ayaa wariyay raaga Omar uga waramaya fursadaha isaga iyo daayirta la midka ah ee ay ku haystaan Somaliland I grew up with Somaliland anigu waxa aan la koray Somaliland anigay waxaan leeyahay intii ay Somaliland jirtay anigoo qolana ma aha waxa jira dhalinyaro aad u badan oo kale oo dalka ku koray isla markaana gaaray heer fiican waxaana laga yaabaa inay qaarkood ay yihiin ganacsato qaarkoodna ay yihiin siyaasiyiin aniga oo kala marka dalkayga Somaliland waxa uu ii ogolaaday wax badan waxa aan ku haystaa nabadgelyo aan noloshayda caadiga ah ku wada karo dhalinyarada kale ee wax ku barta kana shaqeysta Somaliland ayaa qaar iyaga kamid ahina la aragti yihiin wasiirka laftiisa jiilka maantu aad ayay u shaqeeyaan sida ugu caqli galsan maxaa yeelay marka aad dhisto wax fiican waa inaad ilaalisaa
waxaanu ku tiirsannahay nafahayaga waxa aanu joognaa oo aanu ku naaloonaynaa meeshii aan anagu iska lahayn. Somaliland aad bay isku bedeshay. Anu xagga ma ku dhashay marka waxaan garanayaa waddanka burbursan iskuuladeena marka yaryarayn burbursanaa waxaan sameyn jirnay kuraasi iskuulka markii la qoray kuma fadhiisan jirin daasad baan ku fadhiisan jirnay laakiin marka carruurta yar hadda iskuulada tagtaa basas baa qaada kuraasi way helaan cunto fiican bay iskuulka ka dhex helaan anu even waxaan xasuustaa iskuulka markaan dhigan jiray iskuulkayga xitaa suuli hablaha ma lahayn marka hadda markaan arko nolosha si isku bedelayso wallahi meel fiican bay maraysaa waanan arkaa isbedel maalin kasta soo kordhay maalin kasta kani waa hadhaaga dugsigii farsamada gacanta oo ku yaalay caasimadda Somaliland ee Hargeysa oo muuqaalkan laga duubay wax yar oo kadib markii dalka lagaga dhawaaqay la soo noqoshada gooni isu taaga sanadkii 1991 inkasta oo siyaabo badan uu horumar u sameynayo dalku aynu soo qaadano heerka waxbarasho ee Somaliland maanta marayso waxaana tusaale muuqda inoogu filan taas dugsiga caalamiga ah ee ku yaala banaanka magaalada Hargeysa ee Abaarso School kaas oo habkiisa waxbarasho uu la jaan qaadayo nidaamka waxbarashada dunida horumartay waxa sanadkii 2009 aasaasay Jonathan Starr oo ah ganacsade dhaqaalayahan oo Mareykanka ka soo jeeda waxa uu go'aansaday in uu ka shaqeeyo mustaqbal ifaya waxbarasho tayo lehna u geeyo dhalinyaro aan dunida kale arag oo ku nool dal aan la aqoonsanayn si ay ula tallaabsadaan heerka aqooneed ee dalalka iyo jaamacadaha ugu horumarsan caalamka iyada oo loo tababarayo in ay noqdaan hogaamiyaasha mustaqbalka ee Somaliland. Trady Hall oo ka tirsan maamulka dugsiga Abaarso ayaa ka warramaysa ujeedada ka dambaysa dugsigan in la keeno Somaliland iyo fikradda guud ee ay ka dhalatay aasaaska dugsigani. I actually spent about 42 years in the United States in a career in education with degrees from Harvard and Duke. The idea is a wild one. The idea is that you bring over people who want to, from a service point of view, be here and educate these young men and women so that they can move on to go to colleges across the globe. Every day they hear messages about you are to be a leader, you are to be proud of your country, you are to be equally as fluent in both Somali inay aqoontooda ay ka sii wadaan kollejo iyo jaamacado kuwa ugu fiican dunida maalin kasta waxaanu siinaa fariimo wacyigelin oo odhanaya waxaad noqonaysaan madaxda berri waa inaad ku faantaan dalkiina waa inaad af Soomaaliga iyo Ingiriisiga isku si ugu hadashaan maxaa yeelay waxa aad noqonaysaan turjumaano iyo kuwa dalkooda matala marka ay dunida kale u baxaan waxa ugu weyn ee laga filayo dhalinyaradaasi aan wax baraynaana waa inay ka soo dhalaalaan fursadda waxbarasho ay heleen. Somaliland waa meel nabada Afrika ama geeska Afrika ama dunidaba waa meelaha ugu amniga badan wax badan inay ka suurtagelayaan. waa dugsi hooy ah waxaana ardayda ka qalin jabisa ay fursad u helaan in ay ku biiraan oo geedigooda waxbarasho ka sii wadaan qaar ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan dunida sida Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Georgetown, Amherst, American University of Beirut iyo kuwa kale oo badan. in ka badan 30 da'yar Mareykan oo mutacallimiin ayaa u soo guuray Somaliland si ay wax uga dhigaan dugsigan Abaarso. qaar ka mid ah ayaa ka sheekeynaya deganaanshiyaha Somaliland ka jira ee ay maragga ka yihiin kaas oo aan dalal badan oo caalamka ahi Somaliland kula tartami karin. waxyaabaha cajiibka ah ee halkan aan kula kulanay waxa ka mid ah qaabka wanaagsan ee loo soo dhaweeyeen dadka halkan mararka qaar 20 meel oo orod iyo jimicsi ah ayaan ku sameynaa deegaankan si xor ah ayaanu la noolahay dadka halkan ku nool.